وفود وهجامينيو مدحويني أحمد عبد الكريم قرقور أي حاجة كجران sidoo kaleeto diyaarada ayaa duulimaadkii ugu horreeyay maantay safar ku keentay magaalada baxdo garoonka cusub ee markaas laga hirgeliyay halkaasi ay kaga soo kacintay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho maanta waxaan ka soo degnay magaalada baxdo oo laga hirgeliyay garoon anagana aan u yeelanay diyaaradda ugu horreeydo ka degtay inaan noqono Mandeeq Air waxaan ma dicinay anoo magac Mandeeq Air ku hadlayay maamulkeedaba maamulka degmada iyo gobolkaba iyo maamul goboleedka ay intii ka qayb qaadatay barnaamijkan quruxda badan ee maanta daahfurnay Mandeeq Airna maahan airport ugu horeeyay ee ka degto baxdo waxay furtay airport tiro badan oo ka tirsan maamulada Soomaaliya safarka ayaa waxaa hogaaminaysay wasiirada gaadiidka iyo duulista hawada dowladda federaalka ee Soomaaliya wasiirada Firdawsa iyo sidoo kaleeto waxaana ku weheliyay xildhibaano iyo wasiiro ka kala tirsan labada xeer ee dowladda galmudug iyo sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya ugu horreyn ayaa waxaa madashani ka hadlay gudoomiyaha degmada baxdo Maxamed Cabdullaahi Muuse wuxuuna madashani markaas kaga mahadceliyay wufuudda markaas uu hogaaminayo madaxweyne Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor cid kasta oo kaalin ka qaadatay maanta baxdo inay gaarto heerkan tala ku bixisay tigaad ku bixisay waa u mahadcelinaynaa kambanigii hawshaan quruxda badan la sameeyey ee capital oo hogaaminayay dayib xaaji dayib Sheekh Dheere waxaan rabaa inaan horta marka hore Sheekh Dheere Allah u naxariisto raxmad Allah la kulmiye wuxuu ahaa ninkii ugu horreeyay ee degmadan baxda gaari socda soo geliyay hortaas waxaan rabaa inaan maanta fariintaas la dhageysto la qaado dayibna wuxuu noqday ninkii ugu horreeyay maanta diyaar soo dejiya إن شاء الله تعالى فرينتاس وحرمها إن شاء الله حلبان عبد الرحمن محمد الحسين أدواء وكتر سمارلمان كفدرال كي سوماليا أي دنكي سمدرشان كهالله وحنا مركز وجباقي ومدة مركز سوماليا هرب المدن إن كتب غتان خوارجتا مركز رضيعلن كنقول جرو كل خوارجتا على الشباب يسوي لك كلاته هذا العليا شركة جرون كان يقول شيء دجالكاس خوارجتا اللي يقول جرو وحموهم كا جبينتو ذا أستانوا كميدا ايربور كان مانتا انجوي مانتا ان دغالكي اد غشين ريب بخدا داتين iyo gurmadkii leedin fidiyay ee ka bilowday madaxweynuhu aan ogahay subax xasba isla markiiba intii asaga la joogtay inuu idin soo diray dalka Soomaaliya runtii leedin kaga soo gurmaday maanta wuxuu dhalay inaad airpor si degdeg leedin kugu soo gurman kara aad leedihiin wasiirada gaadiidka iyo duulista hawada dowladda federaalka ee Soomaaliya Marwe Firdawsa ayaa dhankeeda waxay balan qaaday in ka wasaarad ahaan ay markaas garab istaagi doonaan degmo kasta oo Soomaaliya ku taala gaar ahaan galmudug oo markaas isku dayda ama samaysata garoon diyaaradeed waxayna sheegtay in intii karankeeda wasaaraddu ay garoonka Mandeeq Allah istaagi doonaan reer baxdo iyo reer galmudug baa runtii waa u hambalyeynaa laba wax baan ugu hambalyeynaa inay iska xoreeyeen qawaariijtii dalkan ragaadiso cadowga ku ahayd inay iska xoreeyeen iyo inay si degdeg ah bilo gudahood ay airport ku dhisteen ayaan ugu hambalyeynaa dhinacna horumarka looga shaqeeyo dhinacna dalka xoreyntiisa looga shaqeeyo labadaas waxyaalood runtii reer galmudug iyo reer baxda waa ku ammaanaynaa waan ugu hambalyeynaa إن شاء الله أنا يدور الجنود وإسكاشنينا سيدي أيربور كان لو شقين لها وحقول من هذه إلهي هذا هذين نقطة حيندا هذين نقطة باور نوردسو هذين نقطة إن ترمينال كلا لما يسترو مشينا دي لو شقين لها سكورتي إلا كانوا قلب كي كوميونيكيشن كديارة لولا حريرة إن كانوا إن شاء الله وحصلنا ما كشقيننا وقدام بيتي مدحوينها دولة جولات كالجلمود أحمد عبد كاري قرقور oo madashani soo afmeeray ayaa waxa uu mahadceliyay kambaniga garoonka dhismihiisa gacanta ku hayay waxa uuna sheegay in baxdo ay u baahan tahay kambaniyaal caynkaasi oo kaleeta oo reer baxda ah kuwaasi oo ka faa'iideysta fikrado cusub oo soo kordhiya marka hore dhammaan madaxdii timid oo ka soo qayb gashay munaasabadan oo hogaaminaysa wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada waxaa la dhammaantiin soo dhawaada galmudug soo dhawaada baxdo ilaahay ku garab qabto قرقر وعرب هالكان مدحوينه ضمان انت كقيب قادتي gacan ka geysatay horumarkan ballaaran airport kan
aad iyo aadka baahi weyn loogu qabay tayadiisu ay sarrayso waqti loo baahnaa iyo meel looga baahnaana kusoo beegmay waxaan leenahay intii ka qayb qaadatay dhammaantiiba maasantii intaas kadib si gaara waxaan rabaa ugu mahad celiyo kambaniga capital oo madax ka yahay xaaji dayib sheekh daare oo runtii aad iyo aad wax ganacsato fara badani aysan samayn ama aysan maalgelin ama aysan u istaagin u istaagay go'aansaday airboorkaana maalgeliyey جيلاني حسن عثمان